Asalaamu calaykum. Waxaan rabaa inaan in yar ka taabto sharaftii gabdhaha Muslimiinta ah ay lahaayeen xilligii uu Islaamka xoogganaa. Inta aanan mowduucaas u gudagelin, waxaan rabaa inaan idiin sheego: dumarku waa laf-dhabarta bulshada, waxaana jirta oraah ah: haddaad aragto nin horumar gaaray, waxaa gadaashiisa ah qof dumar ah oo karti leh. Diinteena suuban ee Islaamka, dumarka aad ayay u dhowrtay oogana ilaalisay in dhibaato soo gaadho. Tusaale, raggu waa dhibaatada koowaad ee dumarka, haddii ay noqoto kufsi, haddii ay noqoto ceebayn. Haddaba, diinteennu waxay ragga faraysaa in indhahooda ka laabtaan dumarka. Haweenkana waxaa la faray inay xijaabtaan oo jirkooda ka qarsadaan ragga ajaanibta ka ah. Waxaan haddaba soo qaadan doonaa 2 qiso oo mid ka mid ay dhacday xilligii Nebi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Gabar ka mid ah Muslimiintii Madiina ayaa waxay aaday suuq ay lahaayeen qabiilkii Yahuudda ee la oran jiray Banu Qaynuqaac si danaheeda uga soo fushato. Kadib nin ka mid ah Yahuuddii suuqa joogay ayaa gabadhii marada ka fayday oo cawradeeda bannaanka keenay. Kuwii kalena waa ay ku qosleen falkaas. Gabadhii Muslimadda ahayd ayaa qaylisay, waxaana soo istaagay nin Muslim ah oo ka danqaday gabadha Muslimadda ah sida loola dhaqmay. Kadib wuxuu dilay oo uu nafta ka qaaday Yahuudigii gabadha qaawiyay. Maadaama meeshu ahayd suuq leedahay Yahuudda oo ay ku badnaayeen, saxaabigii ayay ku soo xoomeen oo waa ay dileen. Dhacdadan ayaa ka cadhaysiisay Muslimiintii magaalada Madiina, waxaana loo sheegay Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Intaas kadib, rasuulka ayaa amray ciidankii Muslimiinta in ay diyaargaroobaan, wuxuuna cunaqabatayn ba'an saaray Banu Qaynuqaac oo uu ciidankii Muslimiinta ku hareereeyay meeshii ay deganaayeen. Cunaqabatayntan ayaa socotay muddo ilaa Yahuuddii ay aqbaleen xukunkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Qisadan waa macruuf, waxayna ku tusinaysaa Muslimiinta siday ugu weyn tahay sharafta dumarka. Maanta cawradii gabdhaha Muslimiinta ayaa meel walba taalla oo waxaad moodaa inaynan qiimo siinaynin. Qisada labaad waxay dhacday dowladdii uu khaliifka ka ahaa Muctasim Billaah. Haddaba waxaa dhacday in ciidankii dowladdii Kiristaanka ahayd ee Byzantine ay weerareen magaalo Muslimiin ay joogeen, waxayna xasuuqeen dadkii shacabka ahaa, intii kalena waa ay qafaashteen. Haddaba gabar ka mid ahay dadkii ay gaaladu qabsatay ayaa waxay ku qaylisay: waa Muctasimah, waa Muctasimah. Arrintii ayaa waxaa Muctasim uga sheekeeyay nin ganacsade Muslim ah oo goobjooge ka ahaa. Kadib, khaliifkii Muslimiinta ayaa isagoo gurigiisa jooga ku jawaabay: labbayki ukhtaah, labbayki ukhtaah. Wuxuuna amray ciidankii in ay dagaal u diyaargaroobaan si gabadha sharafta leh loo soo xoreeyo. Waxaana la sheegaa in ciidan cududiisu gaadhayso 200 oo kun in ay diyaargaroobeen, waxaana hogaaminayay ciidankaas khaliifkii Muslimiinta, waa Muctasim Billaah. Waxaa la weeraray magaaladii Cumuuriya oo ahayd magaalo ku weyn dowladdii Byzantine, waxaana lala wareegay magaaladii. Gaaladiina waxay noqdeen in la dilo iyo in la qabqabto. Sidaasna waxaa xornimadeedii ku heshay gabadhii sharafta badnayd. Cumuuriya oo ku taalla haatan dalka Turkiga, waxaa sababteeda lahaa gabadhaas Muslimadda ah ee u qaylisay amiirkii Islaamka iyo falcelintii geesinimada lahayd ee Muctasim Billaah.